وحقاق داوديال كلي ويلكم كور أما جروب 5 أما BSG قبا سيدو وقرناي كحيران تهاي وأسلوب هذا سجينا طبعا إذا كانوا سجي سنة يجنا وسجيا لما أنتني وهذا سجينا لأن محا أخبارات صباحي وسؤال شاد اسوي دين يسيد محا كل عاي وسؤال شاد اسوي دين يسيد ما بين أيوها وسؤال شاد اسوي دين يسيد dadka qaar ayaa dhahaya maaragtay wuxuu iska ahaa branko iska ahaayay dhahayaan so jawaabtan ku siin doonaa insha Allah horta guud ahaan been ma ahayn waa wax jira because wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa qorshahaasi wadata maaha wax maaragtay adiga iyo dad maaragtay shakhsiyaad caadi ah iskala soo booday ma ahan taas horta number 1 halka iska dhig brankana ma noqon karo laakiin furitaankiisa ayaa marka ka dambaysa dib u dhacaya sababta dib ugu dhacayana waxay tahay sida ay cadeynayaan qoliyaha welcome core waxay yiraahdeen shaqo adag ayaan ku jirnaa oo sidii application-ka aan u design gareyn lahayn so mar rabaan application iskala soo booda ah oo dadkii aan ka shaqayn karin oo adag meeshas waa fahmaysaa Soomaan application adag oo maaragtay complicated ah oo aad u adag meel maaragtay laga mar aan lahayn in la soo saaro lama rabo marka waxay doonayaan application fudud oo qof walba sameyn kara oo la fahmi kara oo maaragtay bilow dhamaad leh inay sameeyaan ayay rabaan marka sidee marka lagu sameeynaya waa in loo adeegsado application kaasi hab fudud waa in loo sameeyaa labo waa in luqad la fahmi kara lagu qoraa application-ka waxyaabaha Mareykanka aan intaan joogay aan arkay waxa kamid ah dhammaan dawladda application-adeedii oo dhan waxa ku qoran luqado la fahmi kara markaan ku leeyahay luqad la fahmi karo af Soomaaliga naftirkiisa tusaale ahaan haddii application af Soomaaliya la soo saaro af Soomaaliga marka midna magaalooyinka qaar af Soomaaliya looga hadlaa kana duwan af Soomaaliga general Soomaalida oo dhan ay ku hadlaan so eraya marka waxa jiro oo maaragtay very unique ah oo dadkoo dhan aan wada fahmaynin ka marka in lagu qoraa la diidaya marka waxay rabaan luqad English oo la fahmi karo very pure ah oo maaragtay oo la fahmi karo inay ku qoraan ayay doonayaan okay su'aasha marka aan u soo laabano oo ah goormee la furaya goormuu furmi doonaa waxaa la furi doonaa later this year ayay yiraahdeen xilliga la furi doono markii hore later this year ma uusan ahayn saad la socotaanba laakiin hadda waxay yiraahdeen later this year ayay yiraahdeen macnaha later this year-na wuxuu iska noqonayaa laba mid waa loo fasiran karaa waxaa loo fasiran karaa dabyaaqada sanadkan waa loo fasiran karaa which is bisha 12aad soddonkeedii oo kale ayaa loo fasiran karaa waxaa kaloo loo fasiran karaa maaragtay later this year sanadkan kadib ayaa loo fasiran karaa which is like sanadka cusub ee 2024 ayaa loo fasiran karaa labaduba waa loo fasiran karaa hase yeeshee weli wax ma aragtay oo clear ah oo like specific touchable ah oo ay sheegeen qoliyaha welcome core ma jiro ay leeyihiin maalin hebel taariikh hebel ayuu furmi doonaa ma aysan dhihin waxay saas u dhahaynina waxay tahay saan horey kuugu sheegay shaqay ka hayaan application-ka saas awgeed waxay rabaan xilliga application-ka uu dhamaanaya ma yaqaanaan oo ma oga marka waxay doonayaan in aysan dadka u sheegin wax hadhow dhibaato uga imaan kara nin aan isla shaqayn jirnay oo Ethiopian ah oo UNHCR iskala shaqayn jirnay Ethiopia joogay ayaa wuxuu dhihi jiray sorry muuqaalka la iga soo dhaxgalay so nin Ethiopian ah oo aan isla shaqayn jirnay ayaa marka loo imaado waxba la weydiinaya waxaas iyo waxaas rabaa isiyaa leeyahay dan wuxuu dhihi jiray niyo waxaas waan ku siin doonaa laakiin balan ma aha u dhihi jiray waan soo eegi doonaa store-ka inay yaalaan haddii aan soo helana waan ku siin doonaa ayuu dhihi jiray laakiin wuxuu dhihi jiray
ha u qaadanin in boqolkiiba boqol aan ku siinayo hana u qaadanin boqolkiiba boqol inaanan ku siinaynin ayuu dhihi jiray marka qofka uu baxo waxaan dhihi jiray waan weydiiyey waxaan ku dhahay niyo adiga mar walba erayadaasaa isticmaashaaye I'm not sure aan dhahdaa macnaa ma hubi waan maaragtay ku siin doonaa laakiin ma hubaa dhahdaaye way saasaa u dhahdaayo on dhahaya markaasuu igu dhihi jiray qofka haddii aad si sax ah wax ugu sheegto oo aad dhahdo ha waan ku siinayaa way taallaa aad dhahdo ood ka dhigto waxaad hubto kadibna baqaarkii aad ku laabatood soo weyso maxaad ku hadlaysaa ayuu dhihi jiray maxaad ku hadlaysaa beenaalaa noqotay maxaad ku hadlaysaa ayuu dhihi jiray marka gaaladan waxay doonayaan waxay tahay especially hadda sida aan ka aragno welcome core teamka waxay doonayaan in aysan dhihin maalin hebel taariikh hebel ayay doonayaan inaysan dhihin why waxay diidayaan in la dhaho oo war bishii afraad aad dhahdeene waxna ma aadan qabanin see wax u wadaan in la dhahay diidaan saas awgeed waxay dhahayaan marka dabiyaaqada sanadkan later this year maaragtay next year si maaragtay hadhow aan loo dhihin waqti ayaad qabsateen waqtigiina waa la gaaray in aan la dhihin darteed ayay u yeelayaan marka guud ahaan bahalka weli ma furna yaan bay la idin sheegin insha Allah mar alla markuu furmana waad arki doontaan newska email walba la soo gelin doonaa anigana waa idin la soo wadaagi doonaa insha Allah hana iloobin halkaan inaad follow dhahdo haddaad TikTok iga daawanayso haddaad YouTube iga daawanaysana waxaan ku leeyahay subscribe dheh haddaad Facebook iga daawanaysana follow isoo dheh intaan dib dambe u kulmi doono walaakiin shaaciyo idin leh wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh